magaalada muqdisho bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa kordhay horumarka laga sameeyay ganacsiga waxaana iska bedelay hanaankii ganacsigii hore waxaana soo baxay shirkado iyo ganacsi la saanqaaday dunida casriga halkan waa moolka ugu weyn magaalada muqdisho waxaana hirgeliyay ganacsato Soomaaliyeed oo hormuud u yahay ganacsada Cabdullaahi Cali Adoon oo kamid ah ganacsada ugu waaweyn Soomaaliya moolkan oo dhismihiisu soconay muddo 2 sano waxa uu sameeysan yahay sida moolalka casriga ee dunida waana kii ugu horeeyay laga hirgeliyay guud ahaan wadanka Soomaaliya waxaan uu ka kooban yahay dukaamo ganacsi oo casri ah iyo maqaayado iyo xafiisyado muqdisho waxa uu kaga yaalaa suuqa caanka ee degmada Xamarweyne oo ah xarunta dhexe ee dhaqaalaha ganacsiga Soomaaliya ganacsatadan waxay ku dhiiradeen inay malaayiin dollar ay geliyaan horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya waxayna tusaale cad u tahay in amniga magaalada muqdisho hadda uu yahay mid wanaagsan كور إنت عن لقيه رجال المال كان جناعة تدو وحي مالجيش كوسمين جيران إمارات كعربتا كينيا يودا مكلا ودنيدا يجو دخاله هذا وبعد جو بيا النبات تلاقوين كان جناعة تدو قاعدين كدي وحيرانا يا مالجيش كالصوماليا يكوسمين جيران دولة ده كلا وحنا سرقوا كعيكم جودها يكوسمين جيران تاسو أبو طي إن دد بدن وصوماليا شقة هلان دد بدن وديب دكون ولا نديب يقصوا لابتان وحنا كتير صداي قوسس بدن ودين راها wiilkan waxa uu ka mid yahay shaqaalihii ka qayb galay dhismaha Muqdisho Mall waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa ku aadan waxaan joognaa Muqdisho Mall waxaan ka shaqeynaynaa 2 sano waxaan shaqada qaybta elektarooniga ka shaqeynaa aniga meeshan markii hore lagu bilaabay shaqada waxay ahayd wax aan jirin oo qashin iyo dukaafada ahayd hadda waxa ma sha Allah wana ganacsatada Soomaaliyeed ay diilo gelisay way qurxisay anaga wayna shaqo gelisay waxaana ganacsatada waxayna sameysay service oo waxaan ka shaqeeyaa hadda aniga qaybta elektarooniga marka hadda horumarka oo jooga waa u jeedin Soomaalida meel walba joogtan waa u hambalyeynaa waxaan u hambalyeynaa horumarka dalka uu gaaray iyo dadkeena cawada u soo hoyatay wadanku waa iftiimo waa arkaysaan talaabadan waxay muujinaysaa dadaalka iyo geesinimada ganacsatada Soomaaliyeed waxayna wada u xaari doontaa horumarka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna dhiirigelin doontaa quluubta shacabka Soomaaliyeed ee 25 sano la daaladhacay amni darrada waxayna soo celin doontaa karaamadii iyo sharaftii ay lahaayeen dadka Soomaaliyeed mid ka mid ah dadka caanka ee ku nool magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Cabduqaadir Abaabul ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku wajahan Muqdisho Mall isagoo ku dhex jira dhismahaasi waxaan u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo kamid yahay Cabdullaahi Cali Adoon iyo tiimkiisa ee magaalada Muqdisho ka dhigay meel muraayada maadaama meeshan ay ehel u aheeday qashin iyo waxay ehel u aheeday eeyo ku dhalaan iyo alkuliistayaasha meel waxay aheeday oo waxaas fuxuusha ka buuxaan haddana waxay noqotay meel ku dayasho mudan marka ganacsatada Soomaaliyeed si ilaahay waxooda ugu barakeeyo waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan ganacsade Cabdullaahi Cali Adoon aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa malaayiin maadaama uu meeshan ka dhiga meel muraayada shalana ahayd meel eeyaha ku dhalaan Zikri Maxamuud Universal TV Muqdisho